madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Ibrahim Cigaal ayaa intii uu joogay dalkaasi Itoobiya waxa uu kulamo kala duwan uu la yeeshay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dalkaasi Itoobiya waxa uu noo sheegay inuu la kulmay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Meles Zenawi waxa kale oo la kulmay rag kale oo iyaguna mas'uuliyiin oo dalkaasi Itoobiya madax sare ka waxa ku helinayay socdaalkiisaasi wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Ducaale iyo wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Saciid Gees iyo gudoomiyaha banka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Ducaale haddaba markii ay u dhamaatay socdaalkii ay ku tageen dalkaasi Itoobiya oo ka yimi martiqaad rasmi ah oo ka helay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Meles Zenawi ayaa madaxweynuhu maanta ku soo laabtay waxaana uu ka soo degay galabta garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa haddaba madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Ibrahim Cigaal markii uu maanta duhurka dabadiisii uu ka soo degay dhabaha diyaaradaha ay ka hadaan ee magaalada Hargeysa waxa halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin iyo madax aad u tiro badan waxa halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Sheekh Ibrahim Sheekh Yuusuf Sheekh Madar gudoomiyaha ku-xigeenka golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdulqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde iyo مسؤولين كله أو كتير صدح له قل قرن دلكن Soomaaliland تلياشة عيدامضة كلا دوان مايركا عاصمة هرقيسة إيو مسؤولين كله أو ترابضن إيو وليبا قار كميدا أرضيدا دوكسيدا مقالة هرقيسة أو يقولون سولوين تاسي كغيب قلي بلسي وحا وقهرين هكاسي وسلام شرف كقاطي عتبيا كتير عيدامضة Soomaaliland مدحويني waxa saarta u diyaaro cunto ka ciidan kara madaxweynuhu dadkii halkaasi garoonka ku soo dhaweeyay ayaa uu saf dheer oo halkaasi ay galeen uu soo maray isaga oo gacan qaaday mas'uuliyiintii kala duwan ee halkaasi ku soo dhaweynayay dadweynihii ardaydii iyo ciidankii intaba intaasi markii ay u dhamaatay madaxweynuhu waxa waraysi kooban kula yeeshay qolka nasashada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa wariyaal ka socday warbaahinta dalka waxaana waraysigaasi aanu la yeelanay madaxweynuhu uu dhacay sida tan madaxweyne waxaad nooga warantaa bal socdaalkan aad ugu baxday dalka Itoobiya iyo waxa kaaga soo qabsoomay
horta marka intaan su-aashaadaba jawaabteeda intaan iyo ballaadhiya waayo arrinkaasi arrin very important weeye waxa weeye Ethiopia waxa weeye arrin waddan aynu la leenahay cilaaqaad aad iyo aad u adag oo maxay qoto dheer sababtoo ah inay dal Soomaaliyeed wargabowgaad wax ma weydiinaysaa maxay hayday dal Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed dadkeena badankiisa ku dhaqan yahay meeshana ay xukumaan inagana ay nala leeyihiin xuduud ilaa 1,000 kilomitir marka waxa weeye dad aynaan cilaaqaadkeeda kala maarmin inaynu wada shaqayno oo wada jiro oo si fiican u wada wadano ay ka mid tahay ay daruuri tahay taayana waa aqbalsan yihiin oo waa og yihiin inana waa ognahay sidaa daraadeed waxa loo baahan yahay in muddo ka maalin had iyo jeer la isu tago madaxdu isu tagto sida ay dadka naga hooseeya ee ama gobolada madaxda ka ah ama ciidamada madaxda ka ahi ay regularly iyaguna si joogto ah isu arkaan oo ay maxay hayday wixii dhibaato ah iyo wixii loo baahan yahay in wax laga wada qabto ay ka wada hadlaan ayaa iyadana loo baahan yahay in madaxda sarena ay muddadiiba mar ay daragto sanad ama 2 sano sanad iyo badh ama 2 sano in ku dhowaanaan isarag madaxda maxay hayday Ethiopia marka sidaa daraadeed baan ayaa maxay hayday iyagoo xaggooda ay ka timi casuumadu ka timi ayaan ugu tagay meesha waxaanu is aragnay maxay hayday ninkii ra'iisul wasaare ahaa baanu is aragnay مع الأسف رئيس وزير الخارجية هو كما قناع مركا دلك مركي وصول نقدين مركي بأبوجي وبحين ساعد يبرد مدكو كسيوم بان وذفرديني لبضا يضع قره مركي هوري ساقا يلي محاي هايدي لبدي النقوري يسرقلو مركا لبدي وزيري إلى السعودي ويقا حرين مركا isagu markuu wasaaradaydi reebay laba nin buu meeshii soo fariisiyay marka waxaan ku wadaynaa waa wax confidential ah nimankan inay naga tageen marka daftiisu qoslay uu arkay deynaan waxa ay tii kaga jawaabayo wasaaradaydi uu reebay ayuu waayahay naga bax labadii oo naga baxeen labadayadii oo qulays ku hadhnay saacadii badwal hadlaynay idin geli maayo tafaasiishii aanu ka wada hadalay iyo wixii aanu isnay waayo waxa weeye wax aad iyo aad sir qoto dheer u ah oo labada dal ka dhaxeeya oo mustaqbalkeena ku xidhan oo mustaqbalkooda ku xidhan oo dalal kale la xiriira marka ma fiicna inaan maxay hayday taas oo kale maanta aan halkan kaga dhawaaqaa ma fiicna laakiin si fiican odaynimo ah oo aanan hore ugu wada hadli jirin awal hore kaftan wadaag baa naga dhaxayn jirtay waxa qosol iyo maxay hayday ayaan kaftana baan ku wadaadi jiray maanta hadalkayagii xaggayga iyo xaggiisaba wuxuu ahaa very serious hadal aan qosol ku jirin oo aan maxay hayday kaftan ku jirin run isu sheega buu ku jiray arrinkayagu jiray marka maxay hayday shalayto ayuu ka tegay Addis Ababa Abuja oo ay madax badan oo Afrikiya ku shiraysa ayuu tagay waxaan ka tibaaxayaa waxaan oran karaa fadhigaas ayuu ka soo qaadi doonaa masiirkii Soomaaliland wuxuu noqon doonaa Ilaahay baa marka laga yimaado xilli waxa soo beegmatay madaxweyne xilli oo dhinacyadii Soomaaliya lagu shirsiinay magaalada Nairobi socdaalkaaguna waxa loo yartuumay inaad mowqifkii qadiyada Soomaaliland ay ka taagnaydeen shirarka dib u heshiisiinta Soomaalida inaad ka oranayso Ethiopia fariiqaad oo kala idin noqonayso shirka Nairobi isla soo hadal qaadeen maxaa jaridii waa ka socotaa adigu waxaan leeyahay maxay ahayd arrinkaasi waa arrin dhammaaday weeye laynagama casumin Ethiopia Nairobi ninka madaxda meesha joogay nagama casumin cid kale oo idinka aan ahayn oo hadal haysa inay Soomaaliya ka qayb gasho Somaliland inay ka qayb gasho shirkaale ma jirto cid
waxaanu isla ognahay caalamkao dhanna ka dhaadhicinay inayna isla ognahay arrinkaa inaanaan waxba ku lahay haddii iyaga la heshiisiin karo marka la heshiisiiyo ee ay dawlad teennoo kale a dhistaan inaannu markaa dawladdaa wada hadallo taasaa caalamku noo og yahay markaa cid nagu tuhumaysa intiina hargaysa ka humlaysa mooyaane oo u sarreeyo maxay de ina gawaba u horreeyo mooyaane cid nagu tuhumaysa amana moodaysa inaannu xaggaa wax xadhig ku leenahay ma jirto madaxweyne hadda maraykanka iyo dawladaha reer galbeedku waa kuwa ololaha madaxweyne dawladaha reer galbeedka oo maraykanku hormuudka ee wakhtigan waxay wadaan ololo ku saabsan argagixisada sida la sheegayna dalalka Soomaaliya meelaha ay diiradda ku hayaan bay ka mid tahay oo inaguna Soomaaliland hadda doonaan